diinta Suudaan halkan wadaymi mas'uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda waxa kala jecel halkan ka faa'iideysto inaan mahadnaq ballaaran u jeediyo dadweynaha gobolka Gabiley ku nool iyo dhammaan nawaaxigan oo dhan sidii sharafta iyo gobonimada iyo geesinimada lahayd iyo walaalnimada ay u soo dhaweeyeen dadkii ku soo qaxay ee ka yimi gobolada bari ee abaartu saameeyeen waxa weeye taariikh lama ilaawana sameeyeen aad baan idinku mahadnaqaynaa aad baan ugu faraxsanahay xukuumadda Soomaaliland مدحونا جمهورية سومالان يدمان محو هاي مواطنين في سومالان دمي ما إلا بدون توتا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى يرسقا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان محمد سلطان عبد القادر آديات بن سلامنا وحن كسودوين ددكيسي ومدكيسي السلطان كوا وعكلو سودوين تن غيبكا ولا وسيردا إن ما يحيك عاصمتها إن بيجيدا وقاسمها جود إن وسارتها ولستا يا قاسمها جود وسارت عيالها ماريها إن إيربوكا باشا يسلاتين تاي ونقمت تلك من تيو وحن هكنو تاجنا يسودوين تا سلطان محمد سلطان عبد القادر سلطان سودو dadkaagii mudadii fiican ku soo dhaweynaa salaam runaantii sida xogeeya dawladda hoosaba sheegay annagu waxaanu nahay dawladdii hoose Hargeysa damiirkayagu nasiin waayay inaanu Sultaan Maxamed Sultaan Cabdiqaadir aanu Hargeysa ku sugno miisaanka uu leeyahay sultaanka guud ee salaadiinta Soomaaliland iyo qiimaha uu ku leeyahay agtayada ayaa noo saamixi waayay inaanu magaaladaanu xukumaynay aanu ku sugno oo nagu kalifay inaanu xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland aanu ku sugno sultaanka waxaan leeyahay sultaan ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow dadkaagii gacmo furan sultaan ku soo dhawow anu tawnay waan ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku soo dhaweynaa sultaanka dadkiisa iyo dalkiisa aad iyo aad badmaasada isagaan ku soo wareejinayaan Qaadir oo hawlo shaqo ugu maqnaa dalkiisa kale hooyo Itoobiya waxaan halka ka salaamayaa dhammaan madaxda qaranka ee halkan ku soo dhaweysay قبل واحد يسكت عذر دارنا يا مالين تيهره أبوليجي يسوي علينا المثال قال كذي قال تيهره ماشي كويس وصوبه هاي سيدا يرى نبات كل بني آدم ولا من برضو يرى من باكل ما أنت لكن وقت صوت لك علي نقابل مني رسول مال لا على كل ما هاد علمية قبل كقبيلة أمارها خدنا عدلك سودوي بيله بريء فصوب بركة سيدا قبضت يحوله ودخل الصوماليين عارف برميرون بابر واقد جسته معلومة ماشي برواقد جسته طال بيسوب برمين هذا اللي بيسودوين الدماء اللي يبيضين حتى سفر من مركز كبير هذا حلاها هذه أبدا وما ستي كائنة هي الروكيل روكيل واحد دور أمال كون كان سوي كان هذا الوطن روكيل اللي يشتريه waxaan jecelahay inaan ka sheekeeyo dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo maamul afartii nin ka weyn ma qabto lagamana ogolo loomana dhiibaho waa wada dhalinyaro rag dhalinyaro way wada tashanayaan siyaasadana markay dad odayaal soo galaan foolxumayo wax ka yimaada Soomaaliland laakiin dhalinyaro siyaasadda way wada qaban kartaa axsaabta Soomaaliland waxa la idinka dhalinyaradii meesha ku jirta ummadan iyo dadkan wax u qabtay doonayaan horumar dad lagu loolado looma baahan oo reereebna meesha ma masal reereebna la yiraahdo Soomaali way dhaafto baashan ugu sii dambeysay laga tashado baan ku taabay nin walba meesha joogo hadduu yiraahdo war ninkan waayo waa hebel iyo hebel magaciisa soo taxaqquq taqaan hada tabiidkiisa ku qoras إلى واحد قبضتان
ayuunbaa loo baahan yahay waxaan odhan lahaa dowlad deegaanka soomaalida runtii cimrigeed meel aanay gaadhin ayay gaadhay maanta wax yaalla waxay dibadda ka keensadaan oo raashinoo la cuno ma jiro waxaasina waxa weeye madaxweynaha dalka haysta ayaa daacada sababta ku daacadaya waxay tahay waxaa kuwa madaxweynaha keliya ilaa aadan caddo kaga soo qabo aan arkay ficilkiisa iyo qowlkiisa oo wada socda halkaa ceeraa laga qodo beritaa lagu dhaqaaqaya in lagu qoday dooxaa beriijkii ha laga sameeyo waa lagu samayna markiiba mid ilaahay kaasoo kale ah ha inoo keeno ilaahay dhallinyarayna waxaa ku dadaashaa axsaabta ina midaysaan afkaartooda ayay somaliland wax ku noqon karaysa laakiin afkaar kala duwan haddaynu kala raacno waxba qabsan mayno lixdankii ayay weli maanta siyaasadda somaliland taagantay berigaa lixdankiina way ka fiicnayd oo wax la yidhaahdo qowmiyad ayaa jirta laakiin maanta qowmiyaddiina way dhimatay dadkiina wuu kala dhintay taasina horumarna keeni mayso ummaddana wax qabad u keeni mayso axsaabta siyaasiga salaadiintu horta wuu dhex ninka baa iskaga xidhay dhexda xisbigaa hebel baa raacaya irada lala yaabi maayo laakiin ninka madax dhaqameeda inuu xisbiba taageero maaha roodkiya inuu bixiyo maaha waayo berisaa la odhan maayo hebelna wuu riday hebelna wuu dooni labadani waayo waa laba ninoo isku reer kala reera laakiin day isku mid ah kaana wuu riday kana wuu dhisay waxaa uga fiican kay ummaddu dooratay isla dee markaas